waa uu mahadsan yahay gudoomiyaha jaaliyadda Somali State mudane Cabdiraxmaan Sheekh Xasan markana waxaan u yeeri doonaa nin aad wada garanaysaan deegaankana laga garanayo ahaana mid kamid ah mas'uuliyiintii deegaanka ugu sareeyay haddana hoggaanka xidhiidhka arrimaha dibadda ee golaha danta Soomaaliyeed waa Maxamed Colaad fadlan ku soo dhawow Thank you. أدبر مسند عبد الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي معك سلامي سلامتي إسلامك. runtii aad baan u faraxsanahay maanta kale barnaamij caynkana codkama maqashaa si fiican fantastic dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mar labaad waa maalin muhiima oo shacabkii Soomaalida ee community-ga Minnesota iyo Minneapolis meelo badan dad badan iskaga yimid dad badan oo waqti badan isugu ka dambeysay in barnaamijkan aan mar labaad isugu nimaadno oo shir malaha waxaan maleynayaa something wrong with it yep everything shir in shir mawduuciisu yahay sida horeba loo faafiyay samata bixinta deegaanka oo aqoon-yahankii iyo waxgaradkii iyo culimaadudiinkii rag iyo dumar ay bulshadii inta isku timaado ay wax iska weydiiso xaaladii deegaanku ku jiray oo dhibaatooyinka jiray haday tahay abaaraha haday tahay maamul xumada haday tahay musuqa haday tahay caburinta iyo maaragtay tacadiyada ka dhanka laga geysanayo xuquuqul insaanka iyo xuquuqaha dimuqraadiga ee shacabku leeyahay haday tahay xaaladda masiirka deegaanka ee maaragtay maalinba maalinta ka dambaysa si cakirmaysa iyo guud ahaan xaaladda deegaanku ku siman yahay uu ku jiro in intaan fagaara isugu nimaadno aan ka tashano wadadii deegaanka iyo dadka loo samata bixin lahaa aan qayb ka noqdo aad baan ugu faraxsanahay halkan ma soo istaagin dabcan si fiican baa loo faahfaahiyay ujeedka shirkan yahay dad badan oo qiimo leh oo hadallo iyaguna caaqibal ka soo jeedin doono iga dambeeya jira laakiin waxaan jeclaan lahaa dhowr qodob muhiim ah inaan ka dhawaajiyo oo ugu horeyso inuu shirkan yahay shir kii koobaad ee dadaalada iyo dhaqdhaqaaqyada shacabkan khaasatan community-ga North America Soomaalidu iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqyada kale deegaanka ka socdaba inuu yahay hordhac inuu yahay kacdoon iyo dhaqdhaqaaq hor leh oo u baahan in la sii joogteeyo oo loo xiliyeeyo oo fagaarayaal iyo abaabulo iyo barnaamijyo kan waaweyn insha Allah ay ku xigi doonaan baan aad u rajaynayaa waxa ugu horeyseen dhowr qodob ka horan la waxaan xaaladda baan ee deegaankii ka jirta ee abaaraha sida horeyba looga dhawaajiyay abaaraha hadda deegaanka ka jiray waa masiibo dabiici ah marka hore oo cimilada isbedelaysa iyo xaalado kala badan ba abaaraha keenaya laakiin xaaladda deegaanku ku jira hadda abaar way dhaaftay kasoo qaybgalayaasha shirkan iyo dhammaan shacabka kale fariintani gaari doonta waxaan jeclaan lahaa inuu qodobkaas u dhaco xaaladda deegaanku imika uu ku jiro abaar ma ah xaalad wuxuu ku jiraa macaluul iyo xaalad gaajo ku jira abaartu waa masiibo dabiici ah way dhacdaa caalamka hada geeyiga geeska Afrikaan ku jirna meelo badan oo abaarta ay saameysay baa jira laakiin meel ma jirto shacabkii on iyo gaajo ay shacab u leedeen oo deegaanka Soomaalida ahayn oo laga soo warramay ma jirto Soomaalida walaalahanay deriska nahay deegaanada Oromada ay nagu xiga ilaa iyo tan iyo Kenya iyo NFD deegaanka isku bay'ada isku xaalad oo dhan abaartu isku siba u saameysay laakiin deegaanada kale gurmad baa la sameeyay qayladaan baa la sameeyay waxa la gaarsiiyay dhamaan hay'adihiisa ama falkii maamuladii deegaanada ama wadamada ka jirina waxa dhexda u xidhan shacabka samata bixintiisa inaga xagga xukuumadeeni iyo maamulkeeni iyadoo 3 sano isku xigta aan roob la helin oo 87 aan idhaahdo 78 degmo oo kamid ah 93 degmo deegaanku ay abaartu saameysay ay waxaad xukuumaddu halkay qayladaan iyo diyaar garow iyo bisayl ay ka muujin lahayd ay waxay awood iyo xoog haysay isugu geyn lahayd ka hordeg si ay sida ugu hortay leedahay inay abaarahaasi isu bedelaan macaluul iyo dhibaato gaajo dadku shacabku leedaan ayaa waxa nasiib darrada dhacday mas'uulka ugu sareeyay deegaanka joogay madaxweyne Mustafa Maxamed Umar
ay ilaa hadda uu ku jira xaalad denial waad arkaysaa sawiro iyo jeegag iyo deeqa la ururinayo laakiin ilaa maanta wuxuu energy-giisi iyo waqtigiisi iyo dadaalkiisi iyo fikirkoodii ba isugu geeyeen la dagaalanka iyo iska caabinta waxa uu arkeen halis siyaasadeed oo ku timid waxa uga daran Jigjiga oo dhalinyar ku shirto meel kamida magaalada Jigjiga ayaa uga halis badan in hal qof uu ku dhinto maanta email iyo garbo iyo ma aragtay qabr bayax duleedkeeda marka waxaan oran lahaa nasiib darada jirta waxa weeye maanta xaaladii abaaruhu way isbedeleen fadlan dad inteena halkan joogta iyo inta kale fariintan gaaraysaba wada walba shacabku uu isugu tashan karo oo deegaankii iyo dadkii loogu gurman karo dadku inay dhinacooda mas'uuliyad iska saaraan inta waxa dheer dad badan baa ka hadla wadooyinka abaarahan wax looga qaban karo ama shacabka lagu badbaadin karo ama sidee loo samata bixin karo maanta deegaanka wadada ugu fiican ee abaaraha wax looga qaban karo waxa weeye ka sokow wixii tabarucaad iyo taageero dhaqaale ee shacabkii la gaarsiinayo waxa weeye in mas'uul xukuumadii meesha jirtay iyo khayraadkii shacabkii ummadaasi ay lahayd in inta lagu la xisaabtamo la yiraahdo lacagtii hantidii cashuurta dadkan laga ururinayay iyo wixii deeq ee magacooda ku yimidayba halkay aaday shacabkan intay samata bixin gaadhay inta la yiraahdo cadaadiska xukuumadda la saaray lagu la xisaabtamayo wada ka wanaagsan oo maanta naf badbaadin kartaa inay jirtaan ugu malaynayo waxaan karna dhaqaale iyo ilaa imikadan xataa community-da kala duwan ee North America iyo meel kale deegaanka inta ugu badan waxa hawlo badan oo gurmada hadii tahay biyo dhaan hadii tahay deeqa kale dadka qurba joogtii dadaal badan way iska saareen dabcan ma muuqato maaragtay waxay hadalhayn ama media ama maaragtay promotion fiican lama sameeyo laakiin meel walba oo wacdo dadku waxay ku sheegayaan community-ga ama dadka deegaanka ka soo jeeday qurbaha jooga wax yar oo isu geeyeen ama dhaqaale yar ama tabaruc yar ama biyo dhaan yar ay sameeyeen wuu soo gaaray bay koranayaan laakiin wali sakoob iyo 10 gobol meel walba waan wacnay meel walba dad waan la xiriirnay intaan hawlahan iyo dadaaladan wad wali ma maqal meel ay dadku leeyihiin gurmad waafiya oo xukuumadda naga soo gaaray ay dadku ka manna sheeganayaan waxaan ugu dambaabaan u qadfamayaan laakiin ma maqal wali way dhimantahay taas inay dadku yiraahdaan qurba joogteedii aagan ka tagtay ama dadkii ehelka ahaa waxay isu geeyeen oo biyo dhaan iyo gurmada waan haragnay laakiin wax xukuumad naga soo gaaray wali maanaan arag waan haynaa marka waxaan oran lahaa dadaalada la wado iyo isku tashiga iyo wixii dadkii tabarucaad dhaqaale iyo taageero gurmad loo gaarsiinayay halkeeda tahay fadlan codkeena iyo waqtigeena iyo energy-geena hangelino sidii xukuumadda meesha jirta loola xisaabtami lahaa loo xagxagan lahaa loo qabsan lahaa loo daba socon lahaa looga shaqeyn lahaa ugu yaraan imika sidoo Cabdixakiim ba ka dhawaajiyay lacag 4 bilyan ka badan baa dadkan World Bank-ga iyo deegaanada jaarka iyo ganacsatada Soomaaliyeed iyo kuwa kale Ethiopia ba lacag 4 bilyan ka dhow waliya lagu waa lacag badan lacagta 4 bilyan ku dhow wali meel ay gaadhay oo gurmad ah oo dhab lama hayo laakiin waxa la ogyahay la xaqiijin karaa in meel walba tuulo walba maanta deegaanka dunyadii dhamaatay deegaanka meelaha dad ay u dhinteen ayna xisaab lahayn yani meelaha ummadaha horumaray halkan oo kale waxa la ogaan lahaa deeyra sax lahayn lahaa update buuxda ma haynaanaguba laakiin gobol aan dhimasho laga soo sheegin ma jirto inta waxa kaaga sii daran ceebta ka weyn waxa weeyaan ceeb xukuumadii meesha joogtay iyo dadkii mas'uuliyiinta ahaa ee la rabay inay dadkan u dhimriyaan ay u dirnaxaan waxaan idhaahno maaragtay tanqasho ayaa waxay dadaal iyo waqti gelinayaan inay qariyaan xaggay ka muujin lahaayeen ay hore ka soo dhigi lahaayeen ay beesha caalamka iyo cid walba u soo gudbin lahayn taasi waa taa abaaraha taasan ku dhaafi lahaa qodob labaad oo muhiim oo shirkan golahan maaragtay samata bixinta isugu nimidnay iyo fagaarayaasha kale xigee kuwan ka sii ballaaran doona ee maaragtay community engagement-ga ay wadi doonto su'aal labaad oo dad badan ay mar labaad isweydiiyeen baa jirta sababta keenaysa inay dad intay isu yimaadaan deegaankii dhibaato uu ku jiro inaan ka samata bixinaan u baahannahay su'aasha ah ka jawaabis bay mar walba u baahan tahay dabcan inteena dareemayso maahe inkastoo xataa maanta amaanu dhigdaloolin ama xaaladda aan la soconin su'aal u baahan oo xaq weyn laga jawaabo su'aashaasina waxa weeye maanta kasako abaaraha iyo dhibaatooyinka kale deegaanka jira xaalad waxaa jira aan shacabka inta halkan joogtay Soomaaliyeed iyo walaalaha kale fariinta gaari doonta ma aan jeclahay in la wadaago waxay tahay maanta wuxuu ku jira xaaladda deegaankeenu ku jiro masiirkiisii siyaasadeed iyo ummadda jiritaankeedii iyo ahaanshaheedii iyo magaceedii iyo maamuuskeedii iyo himiladii bulshahaan ay lahayd
waqtigii ugu xumaa ay ku jirta ayuu ku jira deegaanku maanta taasina waxa weeyaan maanta xaalad kala guura lagu jiraa waxay yiraahdaan kuwa reer galbeedka waxay yiraahdaan the calm before the storm yani inta maanta xaaladda deegaanku ina xaalad degan ay tahay waa laga yaabaa in dadka qaarkii dareemaan laakiin waxa weeye duufaan soo socota xasiloonidii yareed ee ka horeysay waxa weeyaan duufaantu markay ku soo gaadho ma dareemaysa ilaa duufaantu ay ku soo gaadhan xasilooni ba dareemaysa marka pointigeegu waxa weeyaan maanta deegaankeena waxa uu taliya maamul shucuurtiisa iyo lahaanshihiisa iyo dareenkiisa iyo hamigiisaba uu jiro ummad kale iyo deegaan kale deegaan maanta waxaan joognaa madaxweynihiisu uu looga aqbalaad wanaagsan yahay deegaankiisii deegaanka axmaarada ayaan ku jirnaa maanta taas ninka ayna taasi tilmaan iyo sawir ayna siinin wax kale oo tilmaami lahaa ma garanayo maanta haddii doorasho xor iyo xalaal ka dhacday deegaanka axmaarada oo Mustafa Maxamed Cumar oo reewaari uu ka tartamo meel la yiraahdo Goojam waxaan hubaan siyaasi walbo axmaar maanta waxay ka jecel yihiin ay ka dooranayaan Mustafa Maxamed Cumar bay ka dooranayaan sabab weeyaan taasi maaha Maxamed Colaad maaha Cabdiqaadir maaha dadkeena halkan jooga waxa weeyaan dantooda iyo maslaxadooda iyo dareenkooda ka arkeen waxay ka arkeen fikir ay 120 sano rabeen shacabwaaha Itoobiya ee kale inta ku juquumaan ay ku riixaan ay wax arkeen nin Soomaali oo bari ka yimid oo kii ugu fogaa mabda'aasa oo aaminsan oo iyagii ka horeeya oo go'aanada iyo siyaasadaha xaq jirka uu riixayo ay siyaasiyiinta axmaaradii xataa in la soo shirtay ilan fagaara siyaasadeed baa jiro fikrada waa la bisleeyaa waa laga doodaa ninna waxaan la soo bislay uuna jawaabu hayn oo marka la challenge gareeyo uuna difaaci karin lama soo tago ka xataa waalane majnuunka Donald Trump la yiraahdo halkan joogi jiray waxaan bislayn lama hor imaan jirin yani wax walba jawaab uu hayay jawaabta dadka badankii hadiyaan laakiin jawaabay dadka badankiisa kala ku qanci jireen buu la imaan jiray markasta wax laga weydiiyo maanta xaaladda deegaanka ku jira waxa weeyaan madaxweyne waxa jooga warka inayna ummadda Soomaaliyeed ayna qoomiyad ahayn inayna qaran noqon karin oo iskeedu istaagi karin madaxweyne aaminsan baa deegaanka maanta madaxweyne ka anigana maaha waxa hadalkaasi eedan dusha u saarayna maaha he's on the record isagoo hadalka leh oo leh waxaan nahay qabiilo hadiina laga dhaxbaxo ama qaranka guud Itoobiya in dugsanayna haduu ka baxo qabiilo waxaan nahay furfuranaya sidii tusbixi oo Soomaalidu noo joogi mayse waan kala wada tagaynaa madaxweyne aaminsan baa deegaanka madaxweyne ka anigana maaha waxa leh don't take it from me anigana maaha waxa hadalka isaga on the record oo video tape codkiisa iyo maqalkiisa muuqaalkiisa baa yaala eed maaha ama hadal uu si gaar ah aniga ila wadaagay maaha ama waxaan ma aragtay aan itijaah ka bixinayo fikir iyo qiyaas ka bixinayo ma madaxweyne aaminsan weeyaan madaxweynaha deegaanka maanta joogay aaminsan in deegaanka federalismka ka jira wadanka Itoobiya uu noqdo mid juqraafiyada ku salaysan mid juqraafi ku salaysan oo bari iyo galbeed in loo kala bixiyo aaminsan oo deegaankan magaca Soomaaliyeed lagu astay ee dhaxalka ah ee awow qoriga isu dhiibka halganka loogu soo jiray deegaanka lagu sugay ee lagu ilaaliyo ummadiisii siday doonay ha u baabaado dhibaato ka soo gaadhay ninka aaminsan way in magaciisa iyo maamuuskeeda laga bedelo oo loo bixiyo bariga Itoobiya anigana maaha waxa sidaa leh isaga weeyaan madaxweynaha deegaanka Soomaaliya isaga ayaa on the record leh saasan ka jeclaan lahaa hadii aniga la weydiin lahaa buu taagan yahay waxaan oran lahaa qaskan iyo qalalaasahan meesha ka jira waxa xal u noqon lahayd iyadoo deegaanada jihooyin lagu saleeyo waa nasiib darreynteeda la weey deegaanka maanta waxa madaxweyne ka madaxweyne aaminsan ciidamada gaarka ee loo yaqaan Liibooliska historigoodu suu doonay ha ahaado rekorkoodu xuquuqaha bini'aadamku suu doonay ha laakiin ciidan xoog qaran oo dadkaasi maaragtay dhibaatooyin maanta hadii ay yimaadaan ama shacabkaasi ay ka tashi kale u leeyimaado cudud xoog oo lagu tashan lahaa oo hadii anshaxooda iyo hogaamintooda iyo biseylkooda laga shaqeeyo dadku ay diirsan lahaayeen way oo aniga ugu badan dadka ugu badan dhaliilo way laakiin haddana waxaan xisaabta marnaba ka saari karin inuu yahay xoog shacabkan hadii sidii saxda ahayd loo adeegsado dhaqankii saxda ahayd iyo hogaankii saxda ah uu helo shacab dadkan difaaci lahaa way niga madaxweynaha deegaanku wuxuu aaminsan yahay in Itoobiya amnigeeda qaran uu halis ku jiro intay ciidamada deegaanada ahi jiraan waxaan anigu halkan maanta u joogaa inaan alarmiga on sound gareeyo I'm not here to make a speech dadka badankiisu waan garanaya wacyiga halka uu dadkeenu ka joogo
waxa weeye fagaara caynkan oo kalaana dee waxa weeye waa fagaara qaaliyo si fudud inuu kugu iman baa laga yaabaa waxaan iminka hadallada marka aan u emphasize karin inuu xoojinayo markaan leenahay masiirkii deegaanka iyo masiirkii ummadan baa god ku dhacay dad baa markiiba waxay noola cararayaan oo Cabdi Ile nidaamkiisii waqtigiisii sidoo ha Cabdi Ile waanu la halganay waanu diidnay waanu la dagaalanay laakiin Cabdi Ile dhibaatadiisu dil iyo dhac umadeed bay ahayd iyo dhibaato dadka loo geystay laakiin kan maanta iyadoon dad meel lagu dilay iyo dad maanta dhibaato kale oo maaragtay waqtigii aan ka hadlayna sida ay ahayd aan ahayn dhibaatadooda marxaladda keenay laftigeedan ka doodi karno jabhadihii dagaalamayay iyo halgankii socday iyo xaaladihii amniye waxa marka horeba furay ayna jirin oo marka horeba ay doodi ka taagantahay sida ku timiday haddana laakiin waxa su'aala maanta xaaladda masiirka ummadani god buu ku jiraa markaan leenahay we are not joking kaftan iyo ma ahaan xaalad siyaasadeed abuurun ma ah laakiin dabcan marka fikrada iyo xaqiiqahan idin la wadaagaya madaxweyne aaminsan ama hoggaan aaminsan markuu ummad hor fadhiyo ummadda waad garanaysaa meesha uu hagayo madaxweynaha deegaanka Soomaalida waa madaxweyne aaminsan in deegaanka Soomaaliyeed ee magaca Soomaaliyeed lagu ostay Ethiopia qayriinka ku kala qaybsatay marka horeba nin walba xeer iyo maaragtay maday samaysatay wixii kale maamulay ismaamuliye xuquuq la isku hayo waa halkiisa wixii kale khayraad wadaaga waa halkiisa wixii kale maaragtay sid maaragtay loo kala leeyahay ama xuquuq la leeyahay waa halkiisa laakiin waxa ugu weynee maanta laga hayo 30 sano iyo isbedelka 30 sano ka hor nimanka EPRDF leeyahay ay horseed ku hayeen yimiday waxa weeye dastuur ugu yaraan waxa jira aqoonsanaya deegaan iyo dad Soomaali leeyahay inay jiraan maanta xaaladan ku jirnaa waxa weeyaan waa madaxweyne calanka u sida ama afhayeeno ah ama u ololeynaya xoogag aaminsan inayna in la tirtiro deegaan Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed haday tooda noqonaysa maanta if it were the call haday maanta la yiraahdo wad maxaa jeclaan lahayd madaxweyne xoogaga fikirka caynkaas aaminsan calanka u sida weeyaan deegaanka maanta Soomaalida waxa madaxweyne ka waxa weeyaan madaxweynaha deegaanka Soomaalida maanta waa madaxweynaha yiri deegaanka Soomaalida ninka axmaarka ee ka yimid Goojam ee xaqiisa iyo xuquuqdiisu meel taalo haddii uuna helin xaqa Soomaaligi ka uu helayo kulleeg haduuna helin deegaankaas waa apartheid budi sharcigaana sharci aan raba inaan wadan ku maamulo meesha waxa iga dhaantay wuri inaan ka tago meesha ninka axmaarkii una ninka Soomaaliga la xaq ahayn waxa weeyaan budi deegaankaas waa apartheid maanta waxa laakiin su'aala ninka axmaarka ee Ethiopia joogay jigjiga jooga oo reeri waaba la xaq oo waaba la xuquuq oo maaragtay maanta waxa dibaya ma jiro wuxuu diiday inuu shaqaysto iyo inuu xoogsado iyo inuu shaqeeyo muwaaqirka dawladda ku jiraan qandaraasyo qaataan ganacsaday leeyihiin business bay leeyihiin deegaanka tuulada ugu fog iyo magaalada jigjiga isku soo joogan cid maanta faquuqaysa oo xoqaysa oo riixaysa oo leh sida bulshooyinkan kalaba ay noo magan galiyeen baan inaguba dadka u magan galinay dad Soomaalidu waxa weeye acceptance oo in lagu dhax noolaado leh oo in laga dhax shaqaysto ogol oo in lala noolaado ogol weeye laakiin waxa marka madaxweyne adiga ku metelay fagaarayaasha ay ummadaha kale isugu yimaaneen uu la tago sidii wax deegaanka Soomaali uu yahay wax deegaanka qowmiyadaha kale ama lagu adoonsado ama hantidooda lagu dhaco ama dhiigooda lagu banaysto laakiin haddana aad moodo inuu u yahay maaragtay qof u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka ajaanibka ee ahaynba mas'uuliyadiisu inay tahay difaaca dadkan Soomaalida ee isaga sheeganaya dhiigiisa iyo isirkiisa sheeganaya inuu difaaca loo doortay laakiin moodaba inuu yahay afhayeenka ama qof u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka ajaanibka uu noqon kara anigu baano Soomaaliya waan oran karaa dadka ajaanibka ee deegaanka ka jira waan ololeyn karaa xuquuqdooda oo deegaankan dadka soo galaytiga immigrantska dad u dooda jira waa caadi that is normal laakiin ninka madaxweynaha maanta deegaankan joogay ama state of Minnesota governor keedu he looks after Minnesotans dadka Minnesotanska interestigooda ka shaqeeya inaguna waxaan doonaynaa deegaanka Soomaalida dadkiisa iyo dantiisa dadka hoggaanka shaqeeya weeye waxaan doonaynaa maanta waa madaxweynaha aaminsan maanta dadka Soomaalida meel ay ku duuleen ma taalo meel ay dad kale oo maaragtay qowmiyada kale ay ku adoonsadaan ama ay ku juqunsadaan ma taalo alle haday cidi la adoonsani oo khayraadkooda iyo shidaalkoodii iyo hantidoodii ma guuraan kahayd dad la banaystay oo la boobayo la dhacayo la dulmeeyo under apartheid ku hoos nool haday jiraan dadka Soomaalida nidaam apartheid ku hoos nool oo xaqoodii helay waxaan soo dhan aan ku soo duubay waxa weeye
deegaan la ahmaarays garaynaya way barnaamijyadiisa siyaasadeed jihadiisa siyaasadeed meel kale looga duugay waxa weeye siyaasadda deegaanka lagu maamulay waa siyaasadda deegaanka ahmaarada lagu maamulay aniga wixii ugu horeeyay anagoo fikirro kala duwan iyo aragtiyo kala duwan marxaatibu ku ahaa Cabdiqaadir meel fog doonan maayo anigu maalintii aan shaqada ka tagay waa maalintii xisbiga loo oran jiray Somali Democratic Party lagu daray ururka kale way xisbi magac taariikhdiisa iyo wixiisa sidoo doonay ahaad laakiin wuxuu ahaa xisbi dad Soomaaliyeed iyo magac Soomaaliyeed u taagan buu ahaa xisbi wuxuu ahaa dii hogaamintiisa iyo dadkiisa la saxo wuxuu noqon lahaa xisbi shacabka Soomaaliyeed la yiraahdo waxaan maalintii markaa isku haynay nimankan BB-da waa barnaamij konton sano laga soo shaqeynay project ahmaara leedahay way dadkii oromada ahaa inaga Ethiopian sana ee dhaqanka iyo diinta iyo xarkaha kale isku xidhaya ay markii horeba inaga adkaayeen ayaa diidan inagoo Soomaaliya sababta keeni karta wax lagu soo bixiyay maaragtay Central Ethiopia project lagu soo diyaariyay oo xuquuqaha ismaamul iyo aayaka tashiya deegaanka ee deegaanada dastuurkan siinaya la raba in dib loogu laalo sabab inagu aan ku qanacna ma jirto Oroma diidan Sidaama diidan Anfarti baa diidan ahmaarada qaar kood baa diidan oo leh dhibaatada anaguba Ethiopiadan isdhex socotaan ku daalnay xuquuqda ahmaara waa inay xuquuq sugan oo gaar ah oo tilmaaman waa inay noqotaa inta yiraahdeen ba iyagu laftigoodu qowmiyad ahaan isku abaabuleen Ethiopia hadaan naqaanon ahmaara Ethiopian baan hayle ahmaara waxa jirta ahmaaraan hayle intaanan Ethiopian noqonin ahmaar baan ahay ahmaara la baa jirta maanta oo urur leh oo dhaqaaqida ugu culusa oo saameynta ugu badan deegaanka ahmaarada kale Mustafa Maxamed Umarna wuxuu arkaa deegaanka Soomaalida iyo Soomaali baan ahay inta lagu jiray inayna xaaladda Ethiopia degayn amnigeedu degayn siyaasadeedu degayn midnimadeedu ayna sii soconayn barnaamij intuu qaatay ayaa waxa weeye maanta wuxuu la soo shirtagayba ay waa waxay meel walba laga soo wacay Oromo Soomaali ee maali ahmaar siyaasi aqoonyahan mindino sawiyo min honotno su'aal kale kuma weydiinayaan ninkii maxaa ku dhacay mustaqbalkumuuna Soomaali ahaan bay ku weydiinayaan qaarba waxay moodayeen ahmaaradii meel walba caruur kaga tagi jirtay qof kale igama aniga taa laakiin waxa kuna muuna Soomaali ahaan bay koranayaan maya waa Soomaali laakiin waa Soomaali software ahmaara ku jirtaan ku nidhaana markaan wax kale u sheegnaan weyna marka jeedkayga waxa weeyaan xaaladda uu deegaanku ku jiray xaalad adag way kasoko abaaraha kasoko maamul xumada kasoko cunaqabataynta iyo ku tumashada xuquuqda bini'aadamka fadlan oo arka masiirkii deegaanku inuu meel ku laalan yahay cidda uu sugayayna inteena meesha joogta iyo inta kale fariintan gaaraysa iyo inta kale xil iska saartaynatay waxaan ku soo koobi lahaa laba qodob oo degdeg hadalka waan dheeray raali ahaada qorshuuna saama ahayd laakiin way la dheeraad xaaladda siyaasadeed deegaanku maanta way qasan tahay waxa weeye xaaladda deegaanna wax xaalad asaasi xuquuq asaasi dadku dalbanayeen ay laakiin xukuumadda deegaanka jirta ay rabtaa inay qas siyaasadeed u bedesho fadlantaa lagu baraarugsanaado dhinaca kalena waa qodobo kale laga hadlo xorriyatul qowlka iyo saxaafadda xorriyatul qowl iyo saxaafadda intii isbeddelku yimid waa la helay laakiin waxa helay kaliya hal shakhsigaana waxa la yiraahdaa Mustafa Maxamed Umar ninka kaliya hadli kara mar oran waa la kala adkaan mar la oran waa kan marba wuxuu doono oran ee la soo taagan waa Mustafa Maxamed Umar anoo jigjiga hadda jooga hadaan idhaahdo waa la kala adkaan waxa lagu xukumay lahaa kicin shacab inta la yiraahdo beeluhu isku dhufanayaaba la oran lahaa godkan ku jiri leh laakiin Mustafa kaliya weeye ninka madaxweynaha deegaanka ka weeye ninka xorriyatul qowl iyo xorriyad saxaafad kaliya inta wixii ka dambaysa intaad Facebook wax iska leedahay waa caadi waa inta muunada la yiraahdo waa lagu qurxinayaa inta isaga rababo deegaanka waa la hadli karaada ujeedka abu ka dan leeyahay laakiin markaad serious mobilization gasho maalintaad olala dhab gasho maalintaad dad isu keento maalintaad oday iyo waxgarad iyo aqoonyahan isu keento maalintaad qasriga iyo kursiga gilgisho maalinta waxa tahay qaswada tahay maalinta ma tiid maaragtay nin xorriyadiisa iyo xuquuqdiisa asaasiga iyo xuquuqdiisa dimuqraadiyadeed qof exercise garaynayo oo ka faa'iideysanaya ma tiid marka waxaan oran lahaa hadaad maqashaan xaaladda xorriyatul qowlka iyo xorriyadda saxaafadda way jirtaa laakiin in Maxamed Umar kaliya haysta xariga siyaasiyiinta maxaan uga hadlaynaa saddex siyaasi bay noqon karaan afar bay noqon karaan ujeedkaan uga hadlaynaa waxa weeyaan
ما هون حبيب يا عبد الله جزيل يا محي الدين محمد عبد الله هي دلنيرتا كلا سياسيين تي ganacsatada bale ee xidhan ka hadalkoodu tiradoodu yar ma ah laakiin waxa weeye dhibka iyo dulmiga mid loo geysto waa dulmiga iyo dhibka dhamaan loo wada geysto way hadii isiyoo deegaankoodii jooga ayna hadli karin inaga halkan joogna raji deegaankii naga ma jirto ummad xoraan la noolnahay la hadlo la is abaabulo maanta shirkeenan inteena halkan joogta to your surprise markan ka hadlayna xaaladda deegaanka St Anthony Minnesota waan ku shiri karnaa inteenani waxaan doonana waan ka hadli karnaa maanta laakiin Sahal Hotel kuma shiri karno Sahal Hotel iyo Jigjiga kuma shiri karnaa maanta markan ka hadlayna xaaladda uu ku jira deegaanku waa ka maanta Jigjiga madal kamida intaan isugu tagno kuma shiri karno waxaan ka hadlaynana kama hadli karno maynaan oran ree hebel oo kaca maynaan oo ree hebel ku duula maynaan oran geelooda dhaca maynaan oran in cagjar soo qabta maynaan buurtii Jigjiga iyo garabacso maynaan daadan waan munaaqashoonana fikri iyo sheeko iyo aragti ma isweydaarsanayna waxa laakiin St Anthony xalaalka ah Jigjiga xalaalka ma markaan leenahay waxay noo dhibaysana waxa weeye deegaankii iyo dadkii damacbay naga jira dadkii la xajaalay naga jirta hadii maanta waliba waxaan raadada dadka qurbaha joogay ummadaha kala nool mas'uuliyad dheeriya saaran oon saarnayn kuwa halka jooga waayo ummad xorisay u nooshahay baan aragnaa xuquuqdooda la ilaaliyaan aragnaa dad tashaday oo wadan bisayl iyo sharci iyo qaanuun iyo kala dambeyn lagu maamulo inta uu meel gaari kara markaan aragno maanta ka Jigjiga jooga iyo ka deegaanka taraftiisa kala jooga mas'uuliyad dheeriya inaga saaran oo inta mas'uuliyad isaga saaran inuu dantiisa ka hadlo mid inaga dheeriyaan warka mid kalena waxa weeye laba qodob oo kale oo muhiim ah waxa weeye mid waa mid xaaladda maanta dadkeenu ku jiraan ee ah xukuumadda deegaanka maanta ku jirta ay sidoo ka dhawaajiyay Cabdi Xakiin energy-geeda iyo effort-geeda waxay ku bixinaysaa inay kala qaybiso laakiin maanta deegaanku aan waxaan qabaa inuu ku jiro waqtigii midnimadiisa iyo muwaafaqadiisu uu dadku uu waqtiga ugu fiicnaa baan joognaa waxaan ag fadhiyaa maanta gudoomiye jaaliyada maaragtay oo aan la fadhiyo golaha danta Soomaaliyeed baa ka tirsanahay madal bay sameeyeen dadkii la kala hayay ee la isku xuuqinayay ee reeraha iyo xaafadaha laga kala dhigay ee aragtidoodii waxa laga sheekeynay maalin dhaweyd shir waxa la reer afreer maxamed xareed baa halkan joogay iyo xog ogaalsane gabadh xaflad meel loogu sameeyay buu ka qayb galay reer afreero markaas uu reer hebel hay raacina waxa doontaan sheegtay buu reer afreero laakiin reer hebel hay raacina mentality-ga deegaanka lagu hogaaminayay aragtida weeyaan aragtidii xaafado iyo reero iyo lagu kala qaybinay way marka waxaan qabaa golaha danta Soomaaliyeed iyo ururka ONLF iyo dhammaan maaragtay ururada kale Soomaaliyeed way tashadeen way isu yimaadeen waxaan idhi fikir iyo aragti waa lagu kala duwanaan karaa siyaasad waa lagu kala duwanaan karaa dadku iyaga inta is abaabulaan مبدأ سيد الشعب كي يفكر كوجد لهني يجوا طالع لكن محا أساسي common denominator إنه محا لما أنت إنه مدايا تنتينا من مدينة صومالي مدينة ديجان كا طلقة يدد كيساس هنقدر حياة وحي ديجان كا يدد كمثل حديثة هنكمل دونه وحي كلنا هنقول إيو حزبيين إيو حضارة هنقدرنا وجوده هلو كلات كذا erayga ugu dambeeya waxaan ku soo koobayaa kacdoonkan iyo xaaladdan uu ku jiro fadlan waxaan idinku bishaareyn lahaa dhamaan kacdoonkan waa bilow wajigiisu ugu horeeyay buu marayaa kacdoon caynkan ku bilaamo oo wajigii ugu horeeyayna durba bari iyo galbeed isgaara oo wadankii intuu ka bilaamo tan iyo Minneapolis maraya waqtiga yar ee gaaban wali deegaanka ka soo dhex markaad fiiriso xaaladaha jira iyo sida xukuumaddu uga falcelinayso iyo dadka rabitaanka ku jirayna waxaan u arkaa inuu noqon doono kanakii Ilaahay uu ka dhigo kii deegaanka lagu samata bixiyo maslaxadiisa lagu helo dadkiisa lagu mideeyo inaguna aan guul iyo baraar ku gaarno aad baad maasantii